reer muqdisho iska warama soo macnidin ma faydeen markii aan ka soo degnay diyaaradda ayaa markii waxa la yiri minikan minikiina waaye markaa waxa la yiri minikan minikeyga waaye aad iyo aad baa sitiin runtii muqdisho fikirkan ka haysanay markii aanu joognay Hargeysa iyo markii aan nimi fikirkii aanu kala kulannay runtii aad bay u kala duwan yihiin aad bay u kala duwan mugdi cadaan bay kala hayeen iftiin iyo mugdi yani fikirka laga haysto marka laga baxsan yahay iyo marka la yimaado muqdisho runtiina aad baan ugu faraxsanahay inaan ahay dadkaas waxa weeyaan fikirkaas ka bedelmay markii muqdisho yimaadeen arkay xaqiiqda waxay tahay barnaamijka geediga dadaalka wuxuu ka soo bilaabmay magaalada Boorama sidoo kale magaalada Gabiley Hargeysa Burco iyo sidoo kale magaalada Jigjiga geedigu markaa waa socdaal loogu soconayo deegaanadaas kala duwan oo dhan ujeedkiisuna uu yahay in waxa weeyaan ay dhalinyartu kala helaan fikrado iyo fursado dhalinyartu ay xiriiraan anagu maalintii nimi waxa weeyaan muqdisho dhalinyar ka duwan dhalinyartii aan naqaanay baan isbaranay runtiina waxaan ka dhex aragnay in waxa weeyaan fursado badan wadaagi karayno waxa weeyaan aanu isdhex gali karayno wax badan aan isweydaarsan karayno taasna ay fursado waaweyn ay keento waxa weeyaan labadii deegaan hadii noqoto Somaliland iyo waxa weeyaan muqdishoba ay fursado dhalinyartu ugu abuurto runtiina waxaan ugu faraxsanahay inaanu maanta geediga dadaalku soo gaaray muqdisho waxa weeyaan intaas oo dhalinyara oo reer muqdisho ah ay galabta xagan u fadhiyaan maalmaha kamid ah anigoo internetka iskaga jira ayaa waxaan ka search garay 2050 27 sano kadib weeyaan Soomaa ayaan ka search garay talo adduunku sidee u ekaan doonaa waayo waxaan daawaday muuqaalo 25 sano ka hor adduunku sidoo u eekaa dad ka duwan dadkan imika nahay dad timo waaweyn dad waxa weeyaan maryo waaweyn la xiran marka waxaan internetka weydiiyay 2050 talo sidee adduunyadu u ekaan doontaa runtii waxa iga soo baxay adduunyo ka duwan tan aan imika ku noolahay iyo tii hore aynu soo marnay internetka markii wuxuu igu jawaabay horta lacagtu way isbedeli doontaa haddii aad dollar imka isticmaasho ama lacag waxa weeyaan cash ah way isbedeli doontaa waxay noqon doontaa lacag cryptocurrency ah haddii noqoto bitcoin iyo waxa weeyaan lacagahan imika waxa weeyaan imika lafteeda laga trade gareeyo waqtigaas waxay noqon doontaa lacagta qof kasta uu isticmaalo sidoo qof kasta imika dollarka uu isticmaalo ama uu garanayo waxay isbedeli doontaa waxbarashada haddii waxa weeyaan subax walba lagu kaco school iyo waxa weeyaan jaamacad si aad u soo qaadato classroom-kaaga 2050 saas way ka duwanaan doontaa iyo xitaa KG-ga carruurta yar waxay noqon doonaan kuwa galaaskood ku qaata waxa weeyaan casharadooda oo qaab digital ku dhigta waxa isbedeli doonaa haddii aad dukaamada tagto ay dad ku adeegayaan way isbedeli doontaa 2050 oo artificial intelligence baa ku adeegaya oo waxaad rabto ku soo qabanaya kuna sameynaya waxa isbedeli doonaa transportation-ka iyo gaadiidka haddii imka qof taksiila ama dhaweeyaad raacayso waxa weeyaan waqtigaas gaariga waxa weeyaan iswada sida Tesla oo kale ayaa la raacaya adduunka duwan adduunka imika aan yaani ku noolahay haddii 2050 aad joogto waxa isbedeli doontaa waxa weeyaan qaabka imka asxaabta aad u kulantaan oo waxa soo baxay sida arkayseen ololaha metaverse saaxiibkaaga New York jooga aad iskala caawinaysa habeen kamid ah xafiis yar oo ku yaala ama cafeteria ku taala New York يعني waxa isbedelaya noloshii oo dhan xitaa waxa isbedelaysa oo soo baxaya waxa loo yaqaan disk yani wuxuu record gareynayaa qofka dhintay xogtii maskaxdiisa ku jirtay qofka dhintay imka soo xogtii lama dhimanayo intaas oo amaah baa lagu lahaa alaabtaas lagu lahaa Soomaan xagan sida hard disk-ga oo kala maskaxdiisa waxa weeye loo gelinayaa waxa weeye hard disk-ga oo dhan buu akhrinaya waxa weeye qofka xogtii oo dhan baa laga shubayaa hadaba qof dhintay waxa weeyaan marka maxay xaga ka akhrisanaynaa in adduunyadu si xawaaro leh oo aan caadi ahayn isku bedelayso 20 sano 10 sano 5 sano sanad 5 bilood bil gudaheed in intuba ay jiraysi xawaaro ka badan tii hore 5 sano kadib waxay jiri doontaa 5 sano ka hore mid ka badan sidoo kale 10 sano soo socda ama 2030 sidaas la mid ka badan imika tii hore ay jiri doontaa adduunkana marka isbedel weyn ayuu ku socdaa marka diyaar ma nahay isbedelka diyaar ma nahay idinka ma maqlay wali diyaar ma tiin baan maleynaya diyaar ma nahay
waxaa laga yaabaa haddaanad maanta aanad waxa weeye xamaamadaada iyo hawlahaaga iyo nidaamkaaga isku sii dabirdanin si aad 2040 haddii ilaahay naf kugu waxa weeyaan gaarsiiyo aad u noolaato nolosha yacni ugu qiimaha badan maanta ay u baahan tahay isbeddelka haddaba in la bilaabo geediga dadaalkuna waa meeshuu ka bilaabmay